barnaamijkana waxaa marti iigu ah madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Daahir Yaale Kaahin. Daahir Yaale Kaahin waxa uu ku dhashay miyiga deegaanka Qunujeed oo waqooyiga kaga beegan magaalada Boorame sanadku markuu ahaa 1952. waxbarashadiisa hoose waxa uu ka bilaabay isla deegaankaasi Qunujeed. laakiin dugsigiisii sare waxa uu ku dhamaystay magaalooyinka Hargeysa iyo Boorame. waxaana markii dambe uu waxbarashadiisa dugsiga sare ku dhamaystay iskuulka Camuud oo ahaa dugsi sare oo caana imikana jaamacadda Camuud sanadku markuu ahaa 1974. markii dambe mudane Daahir Yaale Kaahin waxa uu wareegay magaalada Muqdisho waxaana uu ka mid noqday ciidamadii nabad sugidda ee Soomaaliya sanadku markuu ahaa 1975. Daahir Yaale Kaahin oo darajada gaashaanle sare ka gaaray ciidamadii nabad sugidda ee dawladda Soomaaliya intii u dhaxaysay sanadadii 1975 ilaa 1990 markii ay burburtay dawladda Soomaaliya. waxa uu ka soo shaqeeyay magaalooyinka Hargeysa, Berbera, Laascaanood, Burco iyo safaaradii Soomaaliya ay ku lahayd Djibouti. Daahir Yaale waxa markii dambe uu ka mid noqday dadkii faraha badnaa ee ka qayb galay shirweynihii beelaha Soomaaliland iyo jabhaddii SNM ee dib u heshiisiinta ahaa ee magaalada Burco. shirkaasi oo lagaga dhawaaqay markii dambe madax banaanida Soomaaliland 18 May sanadkii 1991.